intaa markaan ka yimaado guud ahaan xisbiga barwaaqo ee talada haya waxaan ku soo koobi waan ku ceshanayaa maantana intii uu rogcadaa siyaasadeed Mawlid Hayr Xasan yidhi oo na doorta keliya ma lihiin waxna waa inoo yar daba socdaanoo bal wax fiicanna waan qabanay bal intaa iyo intana isku kaya raaciya haddaad noogu celisaan mar kalena wixii naga qabiyaa baan dhammaystiraynaa baa la socota xisbiga barwaaqo shantii sare ee lasoo dhaafay ballanqaadyada uu qaaday waxaa ka mid ahayd ee uu hirgeliyey in la sameeyo midnimo qaran ama waxa la yidhaahdo falsafadda madhamar la yidhaahdo ayuu qaatay falsafadii madhamarna uu ka hirgeliyo waxa tusaale ama marag madoonkaaga ah siyaabo kala duwan ha loo dhiga xisbigan deegaanka Soomaalidu kama tirsanaan jirin xisbiga waddanka ka taliya agaar baa la odhan jiray ama bahwadaag baa la odhan jiray maantana waxaa xarunta fadhiya oo ugu sarreeya oo hagayahay waxa weeyaan xubno Soomaaliya weeye ee saraakiisha ugu sarsareysa taas waxa weeye waa ballanqaadyadii uu xisbigu ballan qaadayoo xisbi la wada leeyahay oo xisbi qarana in la dhisay inay ahayd waddankuna uu noqdo waddan la wada leeyahay waxyaalaha wax ka qabtay waxaa ka mid ah xisbiga barwaaqo intii tan iyo intii la aasaasay nabadda iyo xasiloonida dalka deegaankeenna markaad soo qaadato marka laga tegay intan gobolka faafan Koonbeyn baa lagu tegi jiray inta kale oo dhan laakiin maanta deegaankeenu cidhif waa nabad dalkuna cidhif waa nabad marka laga tego meelo yaroo kooban oo weli u baahan in shaqooyin laga sii qabto dhinaca waqooyiga ee dalka ah xagga kobaca dhaqaale oo aad u fiican baa ayaa la sameeyey muddadaasi walow duruufo adag lagu jirayo COVID-19 iyo abaare iyo colaadaba ay jireen haddana iyada sidaas tahay lama fadhiisana wax soo saarka kor loo qaaday warshadaha kor loo qaaday kobac dhaqaalo markaa muuqda ayaa la sameeyey dhinaca adeegyada bulshada hadday waxbarashada tahay hadday caafimaadka tahay hadday biyaha tahay waxyaalo la taaban kara uu xisbigu ka qabtay isna muddada uu jiray oo ballanqaadyadiisii ka mid ahayd dimuqraadiyadda iyo maamul wanaagana wax weyn buu ka qabtay xisbigu oo la taaban karo oo cid kasta ay ka markhaati kacayso oo maanta xorriyadda ka jirta dalka iyo deegaankaba waa la ogyahay sidoo kale xagga maamul wanaagga isla xisaabtan inuu jiro qofkaasi waxaa nooma qabanin maxaad waxa u qaban weyday xafiis hebel waxba nooma qaban waxaasu naga dhiman la leeyahay waa maamul wanaagga iyo furfurnaanshaha siyaasadeed uu la yimiday horumarinta deegaanka iyo green legacy-ga ama dhaxalreebka cagaaran oo dhereef fara badan laga sameeyey dalka waxyaalaha ugu waaweyn ee uu qabtay xisbigu muddadii uu jiray ballanqaadyadiisna ka mid ahayd casriyeynta adeegyada kala duwan waa waxyaabihiisna uu xisbigu qabtay muddadii uu jiray xisbigu oo aasaasnaa marka guud ahaan inahaasi waa si guud intii uu ka qabtay markaa dal ahaan deegaankeenna iyo aaggeenna wuxuu ka qabtay musharaxiintii hore si fiican uga sheekeeyey hadday warshadaha iyo shidaalka laamiyada wadooyinka magaalooyinka horumarinta ay tahay marka guud ahaan anoo soo koobaya anuu musharaxiinta hore iyo mas-uuliyiintii hore si hadlaysa waxay lahayn ceed baan joognaa ceed ma joognaa ilaahay ku mahadinaa loo baahan yahay ceedda joogaa way jiraan ilaahay baa noo hadhiyo har baynu joognaa alxamdulillahi rabbilcaalamiin waxay muujinaysaa taasina qalbi fiicnideenna inaan isku qalbi fiicannahay waxaan rajaynayaa weliba intaanaan meesha ka dhaqaaqin inuu raadkeedina ilaahayna siiyo roobka aynu dul taaganna ilaahay noo da'siiyo dhulkana inoo barwaaqeeyo ilaahay dad waxaynu nahay wax soo saar iyo beero iyo muruqooda iyo xooggooda ku nool ee aanan cid kale ku noolin cidna aan weligood dawarsanin baan nahay sidaa laga sheekeeyo waa xaruntii wax soo saarka waa meelihii beeraha iyo isku filnaanshaha iyo damaanadka cuntada laga bartay marka waxaan idinka codsanaynaa mar labaad inaad xisbiga barwaaqo codaysaan annagoo aaminsan oo inaan idin weydiinaba inaan sidaad noogu soo baxdeen aan aaminsannahay 100% in loo codayn doono xisbiga barwaaqo waa hal mid calaamadiisuna waa calaamadda aagaada qamadi kelima waa aagaad qamadi weyn marka aagaada qamadiga inaynu wada taabanno waa isku wada mid cidhif ilaa iyo cidhif looma kala duwana inaynu taa eegano bay noqon doontaa aad iyo aad baan u mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu